si loo helo amni iyo kala dambeyn buuxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa qaatay door muhiim ah oo ah difaaca dalka ka hortagga banaanbaxyo laga soo abaabulay Kenya oo ah mid ka soo horjeeda dawladnimo ka dhalata Soomaaliya. kooxaha musharaxiinta ah ee mucaaradka oo maalmaha abaabulayay banaanbax looga soo horjeeda nidaamka dhasha Soomaaliya ayaa fashil ku soo dhamaaday isku daygoodii oo ahaa dibadbax ay ka sameeyeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ciidamada kala duwan ee dawladda ayaa ka hortagay damaca kooxaha mucaaradka waxaana haatan nabad ah guud ahaan caasimadda Muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka lagu arkayo gaadiidka gaashaaman ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. saqdi dhexe xalay dagaal maleeshiyaadka amar qaata musharaxiinta ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka xoogga dalka ayaa guuldarro ku soo dhamaaday. musharaxiinta mucaaradka oo hadlay saqdi dhexe ee xalay ayaa eedayn dusha uga tuuray madaxweyne Farmaajo oo dhexda u xirtay doorasho nabdoon oo ka dhacda Soomaaliya iyadoo la filayo maalmaha foodan lagu soo haya in Muqdisho ka dhaco shir u dhexeeya dawladda iyo maamul goboleedyada dalka laguna soo afjirayo khilaafyadii ka taagnaa habsami socodka doorashooyinka dalka.